السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولاشنا عايشة كسو دو channelkeena fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar videoga like inoo dheh fikradaadana commentiga nagula wadaag maanta waxaan sameysanaa shurbad cadas ama shuuraba waxa la dhaho aad bay waxay ugu fiican tahay caafimaadka waliba waqtiga soonka oo kale aad baa loo isticmaalaa. Marka halka waxaan kusoo sameysanay yacniga saliid baa kusoo shubanay, waxaan ku darsanay basal, waxaan isticmaalnaa baradho, kadib waa isku yara shiilanaa. Marka cabaar yar isku walaaqno basashii iyo baradhadii waxaan isticmaalnaa oo kale kaarooto aynu yana soo jarjaranay sidii la eg wax yar baa isku shiilanaa. waxba yacniga bisayl badan ma baahna oo waxaan ku darsan doonaa cadaska intaynu soo dhaqno hadba qiyaasta waa aday kugu xidhan tahay. Marka aynu saddexdaas isku soo yara shiilno waxaan ku darsanaynaa yaanyo ama xabuub, kadib kamsar iyo toon baynu soo qaadaynaa waynu kusoo darsanaynaa iyagoo sidoodii nool. waxaan soo qaadaynaa milix, adigu wixii aad bahaaraad haysatid, milix, filfil, xawaash burbuur iyo huruud yar oo aan badnayn. intaas isku soo gidgidinaynaa ama isku soo walaaqaynaa. kadib waxaan samaynaynaa waxaynu kusoo darsanaynaa cadaskii oo aynu soo dhaqnay si fiican u soo dhaqnay. dabadeedna waynu isku walaaqin, biyahaynu ku darsan, daboolka u jiidaynaa insha Allah. marka isku soo bislaadaan waa soo shiidanaa. anigu waxaan isticmaalayaa qalaado maadaama aan tii kale gacanta aan haysanin. haddii aad gacanta haysatidna digsigaaga dhexdiisa yacni baad ku soo shiidan kartaa oo isku shiidan kartaa. waatana sana inoogu soo baxday sidaasay diyaar ku tahay. wixii aad haddaad filfil yar ku darsan kartid waa okay. saasay diyaar ku tahay. waxa doontii baa ku isticmaali kartaa, sideeda waa isticmaali kartaa oo waad cuni kartaa ama waad cabbi kartaa. sidoo kale waxay kaga sii fiican tahay markaad caysh oo kale ama rooti ku isticmaalisid lindana yar ku tuujisatid taal iska arag weeye. waxaan ka codsanayaa in aad subscribe noo saartid oo na soo booqatid, sidoo kale fiidiyoda like inoo saartid. waxay naga caawinaysaa inay meel dheer inoo gaadhaan. wixii fikrad aragti ama aad qabtidna commentiga igula wadaagi kartaa. aad baa idinka mahadcelinaya waqtigiina quruxda badan ee aad la wadaagteen iina hibeyseen. waa idin ogsoonay aad baa mahadsantiin idilkiin.